sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay oo ay u dhaxayso 1 bilyan iyo badh ilaa 2 bilyan oo dollar. daawadayaal madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu guddi u magacaabay musiibadii xalay ka dhacday suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. xubnaha guddida oo halkan oo ah bartamaha suuqa kula hadlay warbaahinta waxay qodob u sheegeen go'aamo ay soo saareen maayirka caasimadda mudane Cabdikariin Axmed Mooge ayaana warbaahinta u akhriyay qodobada ay guddidu soo saartay. waxaan ummadda muslimiinta dadka reer Soomaaliland iyo reer Hargeysaba u sheegaynaa in gebi ahaanba lagu guuleystay in la baktiyo dabkii ka kacay suuqa Waaheen ee bilowday 8:10 habeen hore xalay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo qiimeynaya xaaladda iyo masiibada weyn ee halkan ka dhacday wuxuu magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban wasaaradaha dawladda, maamulka gobolka Maroodijeex, dawladda hoose ee Hargeysa iyo rugta ganacsiga. waxaanay guddidani hoggaamin doontaa howlaha taakulaynta gurmadka masiibada ka dhacday suuqa Waaheen sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay oo ay u dhaxayso 1 bilyan iyo badh ilaa 2 bilyan oo dollar. waana qiimeyn hordhaca weeye. guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa Waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxaa la go'aamiyey in maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo isaguna yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn waxaa la go'aamiyey in maalinta Salaasada oo ku beegan 5 bisha Afraad 2022 suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo xalliyaale wixii dabka uu ka tagayna laga qaado waddooyinkana la furo. waxaa labada cisho loo bixiyey si dadkii dhibta u gaadhay haddiiba waxaan meeshan ku hadheen inay labadaa cisho ka urursadaan, sidoo kalena caagga iyo marada gubatay ee weli looga sii shakisan yahay inuu dabki jiro markaasi loo hubiyo. 6 waxaa la sameeyey dhammaan akoontiyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibadan suuqa Waaheen ka dhacda dadku marka ay ku soo bixiyaan. waxaana la isla gartay wixii qaadhaana ee ka imanaya waddamada aynu saaxiibka nahay, caalamka islaamka, jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, European Unionka iyo hay-adaha caalamiga ah waxay qaadhaankooda ku soo hagaajinayaan guddiga heer qaran ee taakulaynta suuqa Waaheen. waxaana markaa akoonnadaasi ay noqon doonaan oo lala wadaagi doono baanka Somaliland 1830 waa akoontka doolarka ah ee hay-adahaasi ama cidahaasi ay ku soo hagaajin karaan. akoonka Somaliland shilinkayna waxa weeye 1830 oo Somaliland shilinka markaa isagana lagu soo hagaajin karo. wixii tabarucaada ee ka imanaya ganacsatada
iyo shacabka reer somalilan iyo shacabka geeska afrika ku nool iyo shacabka kale ee muslimiinta ahba qof allayaalo qofkii ganacsadaa wixii ka imanaya qaadhaan ka imanaya iyaga waxaa lagu soo hagaajinayaa oo guddiga ganacsatada iyo culimada ee gurmadka masiibada suuqa waaheen iyagana sidoo kale waxaa akoonnadooda ay noqonayaan qaadhanadaa lagu soo hagaajinayaa banka somalilan account number 1830 oo ka doolarka ah iyo account number 1830 oo isaguna ah markaa ka somalilan shilinka lagu ururinayo bangiga dahabshiil wuxuu noqonayaa hargeysa d ama HRGD 9439 eber dahabkuna wuxuu noqonayaa eber 6577 eber 4919 bangiga salaama bank wuxuu noqonayaa 611141 eber 44 oo saadkiisuna uu noqonayo 766111 ama 41 amal bank isaguna wuxuu noqonayaa 1 eber 14441331 premier bank isaguna wuxuu noqonayaa accountkiisu 1 eber eber 7 eber 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 8 2 eber eber 1 akoonnadaas oo si weyn loo shaacin doono xubnaha kale ee guddida oo ka kooban wasiiro ganacsato iyo culimo ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaynu taagannahay suuqii waaheen ee caasimadda hargeysa oo xalay 8 fiidnimo uu ka qarxay dab ballaadhan kaasoo aafeeyey dhammaan suuqa oo dhan kulligii qabsaday inaan halkan tacsi uga diro iyo sabirsiin dhammaan dadkii wax ku noqday ee ay ka soo gaadhay dabkaa dhaawacyadu ka soo gaadheen waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa beddel khayr qaba allah idinka siiyo sabir iyo iimaanna allah idinka siiyo waxaanu u diyaar garoonoon madaxweynaha iyo annagu isla soo garannay in hawshaasi mug leh looga qayb galo oo aan maanta waxba lagala hadhin dadkeenna ay masiibadaasi ku timid oo runtii mid aad u baaxad weyna arrinkaasina guddidiisa ilaa berrito ayaannu soo saari doonnaa hawshaa geli doonta oo ka kooban cid kasta oo reer somalilan runtii saasay u gurmatay waddamada deriska saaxiibada somalilan cid waliba way u damqatay saasaa loola joogi doonaa saasaa loola gurman doonaa khaalid mahdaleli oo cable TV bartamaha suuqa waaheen ee magaalada hargeysa